dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay khilaafka dhanka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dalalka Sacuudiga iyo Kanada. goorsii horeysay ayaa wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Al-Jubeir waxa uu Kanada ku eedeeyay faragelin arrimaha gudaha ah iyadoo Kanada ay adeegsanayso dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ku sugan dalka Sacuudi Carabiya. iyadoo arintani ka falcelinaysa xukuumadda Riyadh waxa ay eriday safiirkii Kanada waxay kaloo hakisay isweydaarsiga barnaamijyada dhanka waxbarashada. waxa kale oo ay hakisay duulimaadyadii u duulayay dhanka dalka Kanada. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay garab taagan tahay dowladda Sacuudiga. xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay si dhow ula socotay xaaladihii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay xiriirka dowladda aan walaalaha nahay ee boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Kanada ayaa lagu yiri qoraalka. waxa kale oo qoraalkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya lagu sheegay iyadoo laga ambaqaadayo arrinkani jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay adkeynaysaa taageeridda mowqifka diidmada ee dowladda aan walaalaha nahay ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ee faragelin dibadeed oo lagu sameeyo arrimaheeda gudaha iyadoo la tixgelinayo mabda'an ogoleen faragelin ee lagu cadeeyay axdiga qaramada midoobay oo ay ku jirto gobonnimadeeda iyo madax bannaanida go'aan gaarideeda iyo waxa ay jideyso oo ah siyaasado ama habab garsooreed oo la xiriira shuruucdeeda qaran. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn waxa ay sheegtay inay rajeynayso Riyadh iyo Ottawa inay ka gudbaan khilaafkooda si xiriirkooda u sii socdo oo saldhig u ah kalsooni iyo xushmad isdhaafsi ah. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya haba yaraatee waxba aanay ka quseenin arrimaha gudaha ee dalka Sacuudiga hadiiba faragelin lagu sameeyo. waana su'aasha dad badan hadda ay isweydiinayaan sababta dowladda Soomaaliya ay ula soo degdegtay war-saxaafadeed ay ku taageerayso dowladda Sacuudiga. inkastoo Sacuudiga iyo Soomaaliya xiriirka ka dhaxeeya uu yahay mid wanaagsan haddana sidoo kale Kanada iyo Soomaaliya xiriirka ka dhaxeeya ayaa ah mid wanaagsan.